السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا كحك السلام يا دويها الصوماليات مكسي جوجان عندكم سلام يا سلامة إسلامك. حنلاقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنت وحن كهض لي لبا ريموت لبا ريموت كلا أهلا سعانوت iyo Muuse Biixi iyo magaalada Muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan ku bilaabay waxaan leeyahay magaalada Laascaanood maxay ahayd arrinteedu aad u adag tahay sababtoo ah Muuse Biixi iyo wuxuu cadeeyay inuu dagaal ku qaadayo magaalada Laascaanood ama gobolka Sool. arrintaas aad iyo aad wax laga xumaado maxay ahayd qarniga kobilaatanaad inagu ku jirna ee Soomaali weli isku maalaysa ama dagaal soo hanjabeyso runtii wax laga xumaado weeyaan iyadoo caalamku ku tartamayaan sidee wada u tegi lahaayeen dhammaantood tartan ku jira iyo dhismo iyo qurux iyo wanaajin iyo sidee u tartantaan dowladaha sidee baa ula tartantaan bay ku jiraan caalamku ku tartamaya maanta dowladaha ugu sarreeya inay Soomaali maanta dib u soo celiso oo halka joogtay kasii hooseyso weliba awoodooda dee aanay caalamka la soconin ka harayaan halka imika la islaa xoogaa bay soo noolaanayaan inay dib u soo celiyaan wax laga xumaado weeyaan. Muuse maxay ahayd Biixi waxaan kula talinayaa waxaan leeyahay ciidankaas aad meesha keentay maxay ahayd ciidan dowladeed ma aha ciidan ma haddaan dowladda mar haddaan la aqoonsanayn Somaliland wax la aqoonsan yahay maaha marka dadka halka aad keentay oo dagaalka ka soo qaadi doona ama maxay ahayd adu keentay dagaalamaan waxay noqonaysaa arrintoodu dad xaq darro ku dagaalamaya oo nin jooga maxay ahayd gurigiisa jooga duulaan ku qaaday nin gurigiisa jooga nin duulaan ku qaadayna waad garanaysaa waxay tahay lagu shiiday ninka la dagaalama waa nin ku shiiday oo laga gardaran yahay nin laga gardaran yahay buu noqonayaa ninka gurigiisa loogu yimaado ninka gurigiisa jooga soo weerarana waxa u bannaan inuu naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa gurigiisa u difaacayo maxay ahayd marka waxaan leeyahay Muuse Biixi ka joog baan leeyahay dadkii dhalayna waxaan leeyahay dadkiina kala bax oo ka qabsada isagoo Muuse Biixi haddii aan naftiisa rabin oo horeba dee dhibaatooyin badan soo galay dadka dhalay oo dee ka qabsado kala bax haddaad u bareedheen dhalinyaradin halaagtaana wallahi idinka idin xun tahay Laascaanood waxaan leeyahay halkiina jooga dagaalka qaadina halkiina jooga waxaad noqotaan maxay ahayd dad guryahooda difaacanaya dadkooda marka maxay ahayd waxaan kaloo ka hadlayaa insha Allah bismillahi kariim dowladda Muqdisho oo la yiri ciidamadii la doonayay in la saaro oo lagu ballamay 2024 inay ahayd baan ka filayaa ciidamada la yiraahdo ADMIS waddanka Soomaaliya iska jooga wax ka qabtaan aanay jirin aragoodii muuqdo imka waa qarsoon lama arko meel joogan ma marayaan waagi hore oo marii hore farmaajo uu qabsaday waddankana qaariyaashu wax ku jiri jireen hay haday sharciyada dadku ku jiri jireen oo say doonaan dadku la dhaqman jireen Soomaaliyeed sidoo farmaajo uga fadhiisiyeen oo yiri ka fadhiista dadka awoodooda loo dhiman inta ka dambeysay Soomaaliya ka hadlayaan email joogan toona ma jirto waqtiga waxa loogu kordhiyay oo xasan sheekh leeyahay waqtigan u kordhinaya si dhibaatay joogay maxay ahayd arrin aad iyo aad looga xumaado weeye la leeyahay weli kuwa kale lagu soo daray meena inuu garanayno maaha xal looga jeedaa laakiin niman dagaal ku jiraan ma aragoodii waa iska daxkay ciidamada Soomaaliyeed dhalinyarada dadka Soomaaliyeed dhaleen oo qolo qabiil walba waa ku dhamaaday meeshaas haday Soomaaliya baa leedahay meel gobol kasta ka yimaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhimatay halka weli dagaalka kula jirtay qoliyaha waxa loo haysto ninkan oo haysto dhalinyarada maxay ahayd ciidamada Soomaaliyeed loo lugoynayay ma garanayno micnaheedu waayo sababta tahay lugooyadaas oo ah haddii mataqaanaa ciidamada kale laga saaro
dee waxay ku dagaalamaan baa la siin lahaa ciidanka soomaaliyeed hubdii culus baa la siin lahaa waxyaaba kale iskaga difaacaan oo sida gawaarida oo kale maxay ahayday marka inuu ciidamada dhalinyarada soomaaliyeed isaguna sidaa dhabarka uga jebiyo iyagoo habeen maalin dagaal ku jira aad iyo arrin looga xumaado weeyaan waana arrinta waddanka dalka soomaaliya wax jabtarta weyn buu ku jiraa dalku marka farmaajo dee waatuu dhameeyey soo dhameeyey aad maxay ahayday dhowr sano sheekadu soconaysay waatii lagu heshiiyeyna baxaan oo arrin soo dhamaata si maanta inuu celiyo waxay uga jeedo ma fahmin micnaha dee gumaystaaba isagaa la shaqeeyaan warkaano gumaystaan la sheegayo isagaa la shaqeeya suu muuqdo waxa la leeyahay waxba dagaalamayaan ciidamadii wuxuu ka saaray waddankiibu nadiifiyey waddankii muxuu sameeyey maxay ahayday xasan sheekh shicib kacdoon shicib baa dhacay kacdoon shicib hadduu dhacayna waxuu u baahday shacabku dee wax hogaamiye oo ciidamadooda garab ka dhigteen awal garab lagama dhigan jirin ciidanka waa ciidankii farmaajo maqli jiray la leeyahay ciidankiisi baa na laayay ciidankiisi halka maray hal laaya la oran jiray awal dee alxamdulillah iminka shicibka inay fahmeen ciidankooda inuu iyaga difaacaya oo dhimanayo maxaan leeyahayna dad baan maqlaya leh meel lama xoreey intuu joogay farmaajo markaa la haystay muqdisho la haystay la xoreeyay maxay ahayd dhul badan oo aan garanayno aniga aanan magaalada ka xusnay baaba jiro dad badan oo la xoreeyay intuu joogo dhan dagaal baa lagula jiray waana intuu dagaal iclaamiyo dagaal baa intuu dhan lagula jiray ciidamadii la dagaalamay lahaana waa kuwa nimanka dagaalamay isagaa u dhisay marka dadkan horta dad abaallima ah in la iska abaalka dhicno wax wanaagsan maaha maxay ahayday marka waa nasiib daro wallahi hadduu maanta dhibiisu celiyey ciidankii la doonayo dalka inay ka baxaan weliba qolada tan dee wejiga xeetaa waxay kusoo gabanaysa leedahay ajanabi baa dalka jooga inkastoo aanan anigu garan karin wallahi micnahooda iyo ujeedadooda sidaasay yidhahdaan oo ku andacoodaan odaga kale maxay ahayday odaga maxaa ka hadlaya odagan kale oo ismaaciil cumar geelo sidaa soomaalida isugu dilo hubka isugu dhig waxaad ka heshaan bay leedahay aakhirka adigu baa kugu soo noqon doonta waxbad lagaga saari doonaa halkaad joogto jabuuti ku talagal taasoo ku biyo cab subaskarayb ka saara sheergareeye subaskarayb sheer channelku aad buu hooseeya bal kor u qaada soomaaliya waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu